isuduwaha cusub ee wasaaradda dhalinta ciyaaraha Somaliland ee gobolka Sool Fuad Axmed Cali Haybe ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana dadweynaha reer Laascaanood ay ka hortageen hilaadii meel u jirta 20 kiiloomitir waxaana intaasi kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada Laascaanood waxaana xaflad ballaaran loogu qabtay hoolka dawladda hoose degmada Laascaanood waxaana xafladaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir gudoomiyaha isboortiga gobolka Sool xubno kamid ah wasaaradda ciyaaraha ee gobolka ciyaartoydii hore ee kubadda hore u ciyaari jirtay macallimiinta kooxaha heer koowaad iyo heerka labaad ganacsato dhammaan kooxaha kubadda cagta ee gobolka Sool waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn ka soo jeediyay dhammaan mas'uuliyiintii ka kala socday kooxaha iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee gobolka Sool isboortiga gobolka Sool kooxihiisa kala duwan oo halkan iga muuqda waxaan uga mahadcelinayaa sidii quruxda badneed ee notiiskii aan u siinay ay u qaateen nagana soo qayb galeen xafladda soo dhaweynta isuduwaha cusub ee isboortiga gobolka Sool Fuad Axmed Cali oo ah rugcada u dhashay gobolka Sool ka soo shaqeeyay qurbaha kana mid ah academiga Manchester City una qaabilsanaa madaxa dadka laga tirada badan yahay runtiisa inuu wada ogsoonaayba Fuad u malayn maayo in gobolada waqooyi qof la mid ah ama la experience ama shahaadada uu wato in uu joogo waxaan kala rabaa halkan inaan ka codsado dhalinyaradii isboortiga ahayd ee gobolka kuwa qurbaha jooga iyo kuwii awood u leh inay dhalinyarada caawiyaanba waxaan rajaynaynaa inay caawiyaan oo wax la qabtaan isduwaha cusub isduwihii ka horeeyay Fuad cidi lama shaqeyn jirin laakiinse waxaan rabnaa isaguna inuu soo jiito dhalinyaradii caawin karasa ee isboortiga iyo waliba madaxda kaliya madaxdaba waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan iyaguna oo wax alaala wixii karaankiisa ah ay la qabtaan dhalinyarada isboortiga gobolka Sool waxaan leeyahay hogaamintii noo hagaagtay la shaqeyntu aanay naga xumaanin oo kuwa la shaqeeyaan noqono inkastoo wadanka dhaqaalihiisu kooban yahay wax la qaban karayaa iska yar yihiin haddana anigu waxaan aaminsanahay Fuad baa la doortay hadaynu kaga hadhno oo aynaan meel kasta ka caawin oo aynaan wax kasta ku caawin inaan waxba qaban karin Fuad qof walba ogow kulligeen oo isu tagnay un wax qaban karnaa qof walba kaalinta kaga aadan isduwaha cusub wuxuu maanta soo gaaray meel banaan oo meeman maamulkii hore gobolkuna wixii uu qabtay de waa muuqanaya horta qof walba iska hadli karaa koox baa laga soo badiyay wax lama qaban maaha wuu shaqeeyay maamulkii hore laakiin meeshii la rabay ma gaarin eedno dhaliilna way lahaayeen isduwaha cusub waxaan leenahay soo dhawow dee aadba hadeer ka sii qaad meesha aad ugu timi isduwihii tegina dee waa sagootinayna waxayna soo dhaweynay maanta oo meesha iskugu niminay soo dhaweyno isduwaha cusub ee Fuad oo aad u garanaysaan isduwihii horena waynu sagootinayna dee wax badanna gobolka uu qabtay shaqo badanna uu soo qabtay ninkan odaga la soo magacaabayna shaqo badan baa sugaysa marka oo shaqeyn waxaan assalaamu calaykum feerkana waxaan leenahay welcome to Sool aad baan ugu faraxsanahay nin professional oo shaqadiisa yaqaan in nala soo magacaabo waana soo dhaweynaa waana la shaqeynaynaa xafladaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir soo dhaweynaa isduwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Sool Fuad oo aan dhalinyaro ah oo dhashay deegaanadan aan rag qurbaha ka yimi sababtoodu ay ahayd inay dirdir geliyaan hanaanka ama qaabiyaareedka dhalinyarada ee gobolka Sool waan soo dhaweynaa waxaan la jecelahay bismillaah kariimaan oo shaqadiisa ay tahay u guto ee rajay doona soo marka hore isduwahayn wax badan gobolka ka qabtay ciyaaraha hadeerna maadaama uu xil qaaday oo uu noqday isduwii wasaaradda ciyaaraha waxaan jecelahay in wax badan oo aan hore ugu qabsado hadda ugu qabsami doono bismillaah kariim waxaan ku codsanaa dhalinyarada laamahooda kala duwan ama kooxaha ka dhisan degmada iyo gobolkaba in isduwaha la shaqeeyaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi soo xidhay munaasabadaasi isduwaha wasaaradda dhalinta ciyaaraha ee gobolka Sool Sir Fuad Axmed Cali Haybe isagoo halkaasi ballanqaadyo waaweyn uga sameeyay dhammaan ciyaartoyda gobolka Sool ay ugu waaweynayeen dhigista garoonka Cabdi Bilar rooga cagaarka ee hore loo keenay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhalinyaradu way hadashay dareenkooduna way muujisay waxaynu ognahay
gobolka sool isboortigiisu halkii ugu hooseysay ee abid inuu gaadhay. xukuumaddu way ka soo jawaabtay fariintii aad dirteen, waxayna garatay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha, agaasimaha guud iyo agaasimeed waaxyadada oo dhan waxay ka soo jawaabeen codsigii ka soo yeedhay gobolka sool. waxaa inoo yaalla garoonkii cabdi bile oo kaarbadkiisa inoo yaallo. waxaa iyana baaqili ka soo jawaabtay marwe samson oo runtii aan u mahadnaqayo mar koowaad iyo mar labaadba. waxay kaga soo jawaabtay markii hore inay garoonka kaarbadkii la dhigi lahaa cabdi bile cabdi ay keento, iyada oo ku shaqaynaysa siyaasaddii uu madaxweynaha mudane siinaanyo uu u dejiyey dhallinyarada gobolka sool iyo sida wax loola qaban lahaa. mar labaad waxay ka jawaabtay baaqa intii hadhsanayd oo garoonka 25 bisha ka gabilay marka uu dhammaado inuu Kasoolle ku xigi doono. Serie B-da hadda socotana ay noqon doonto ciyaarihii ugu dambeeyay lagu ciyaaro didibka Laascaanood. intaa kadib shaqo badan baa inoo tahay. maxamuud aadan askar maxamuud guray telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Laascaanood.